السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبada Mashil Media muuqaalkana maanta waxaan kaga hadlaynaa siyaabaha aad iskaga ilaalin karto walwalka iyo niyad jabka. Qofka noloshiisa waxa uu maraa duruufo iyo waayo ku abuura shucuuro kala duwan sida jacayl, nacayb, urkutaalo, xafiis, qiiro, wacadfur, nidnimo, awood, khiyaamo, daacadnimo, fikir dheer, kadsiimo, degdegsiimo iyo tobanaan kale oo aynan ku soo koobi karin halkan. Mid kastana ay dhaliso duruufo iyo xaalado ku xeeran qofka. Ugu horeyn, haddii aadan ka mid noqon saaxiibada ku taxan Mashil Media, nagu soo biir. Duruufahan dadka qaar waxa ay ku keentaa raad taban oo noloshooda ku yimaada. Ay culimada nafsiga ku magacaabeen waxa afka qalaad lagu dhaho negative energy oo la macno ah tamarta taban, gaar ahaan marka uu qofku xaaladan aan ku soo xusnay kor uu u gudbiyo dadka ku xeeran. Ayay khubaradu cilmi nafsigu aaminsan yihiin in marka uu qofku ku jiro xaaladda tamarta taban aanay ka khatar yarayn xaaladda caafimaad ee jidheed. Waxyaabaha ay qofka ku keento ay ka mid yihiin inuu qofku si taban u fakaro, u niyad jabo, aanan danihiisa ku foofi karin, niyad xumo, aan u arkayn ama aaminayn inay jiraan wax wanaagsan oo uu heli karo ama uu guul u gaari karo, iyo inuu go'aamo qaldan nolosha ka qaato asaga oo markasta sheegaya cudurdaar oo ugu marmarsiinoonayo. Waxaana kasii khatar badan in dadka xaaladda ku jira ay awood u leeyihiin inay u gudbiyaan dadka ku xeeran. Haddaba sidee baad uga dheeraan kartaa dadkaas ku jira xaaladdaas? Ugu horeyn, qodobadan soo socda raac si aad iskaga ilaalisid dadkaas. 1. Iska jir in ra'yiga dadka kale raad kugu yeeshaan. Inaad raali gelisaa dadka kugu xeeran oo dhami waa arrin aan suurtagal ahayn. Sidaas awgeed ha isku mashquulin aragtiyahaaga taban ee ay kaa aaminsan yihiin oo keliya. Ku dadaal inaad adiga raali ka tahay naftaada, ficilada aad ku kacayso adiga oo aan dadaal gelin raaligelinta dadka kale. Isku day inaad mar walba xakamayso naftaada. 2. Ula qiiro dhibaatooyinka dadka kale. Way fiican tahay in qofku uu markasta lahaado dareen bini'aadanimo, la xanuunsado dhibka haysta dadka kale. 3. Ku dadaal inaad iska xakamayso xiriirka dadka kale. Markasta oo aragtidaadu quusato, marnaba noloshaada ha u bedelin nolosha dadka kale. 4. Waqti qaado. Waa muhiim inaad naftaada u samayso waqti u gaar ah oo aad cid kasta ka dheerayso, waayo waxaad heli doontaa nafis iyo nasasho badan, isla markaana fursad si degdeg ah arrimaha gaarka ah uga fakarto ayaa kuu suurtagelaysa. Maxaa ka fiican inaad maalmaha qaar adiga keligaad barandaha gurigaaga fadhiisato oo aad halkaas bun ku cabto. Waa hab aad naftaada iyo maskaxdaada firfircoonidooda ku abuuri karto, aadna dunida dhinacyada fiican ka eegi karto. 5. Xakamee shucuurtaada. Qofka nafsad ahaan kalsoonida kuma aha awood uu leeyahay inuu shucuurtiisa xakameeyo oo uu ka adkaado in naftiisa si aan iyadu uga adkaan. Ogow, waa tamar taban markasta cid kale kaa aaminsan tahay ee mararka qaar ayaa ay naftaadu leedahay ugu keenaysa inaad shucuurtaada ka adkaanto. Waa habka aad isaga xabin karto.